marka ugu horeysa Allah mahadle Allihii Soomaali naga dhigay Allihii Muslim naga dhigay Allahaasaa mahadle markayga xigta waxaan rabaa maanta inaan fariin u diro waxa weeye dhalinyarta gobolka Awdal iyo madaxda laga soo doorto gobolka Awdal iyo Gabileyba labadaas aan rabaa maanta fariinteeda ku socotaa mid dhalinyartaan leeyahay dhalinyarey ilaa maalintaad hadasheen ilaa maanta waan daawanayaa markaan hadalladiina dib u raacay iyo waxaad ku hadlasaan iyo maanta halka taagan tihiin waan ogaay waxay nahay inay caadifad iyo nin xilo carraya ahayd markaan wajiyadiina eegto taasina waxa iga cad waxaan meediyaha maanta ka maqlayaa in layni kala jabiyey marka ninka la kala jabin karaana waa nin markiisa horeba aan waxba hayn ama caadifad ama lacag eriyanaysay een ummad masayrkeeda ka hadlayn marka hadda waxaan igu dardaarayaa dadka wax garanaya wax weydiiya dadka wax garanaya wax weydiiya intaynan dad hortagin waxa weeye haddaba haddaad saa ku sii socotaan na sakanaa laynagu kala furfuraa intaan ogahayna idinka iska dhaafo aabbihiin iyaan waxba ogayn oo la marsadaa inta taariikhda noo qoran annaga markaa dhallinyaray waxaan nigu waarinayaa inaad guryihiinna iska fadhiisataan ilaa nin wax kala garanaya aad hesha mooyaane oo inahaga mooyaane taasi waa taa midna waxaan uga furayaa nimanka ka mas-uulka ah gobolka Awdal Gabiley ilaa sayla ilaa nawaaxigeedu intay ku fadhido loo soo doorto ama xildhibaan ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan ama dad xil sare haya ha noqdaan oo waxoog warda waxa weeye annaga gobolka iyaga inta aanu Soomaaliland dhisan tahayba wax horumar ma soo gaaraan waxaanu nahay dadkii dhulka deganaaye iska lahaa ee Soomaaliland la sheegto degan baan intaan nahay annagu wax horumar inama soo gaaraan wax macluumaad inama soo gaaraan meelo laga codeeyo dadkaygu ma laha iska dhaaf doorashada aad maanta aad rabtaan inaad u qabataan ee dadka ku xiriiriyaan meel laga codeeyo ma laha waxa lacagayna hal qabiil bay gacanta uga galaan wadanka soo gala imikana hal qoys bay ku soo urureen hal qoys oo wadankaba deganayn oo 5 kiiloomitir anaga noo qoran intuu ka degan yahay ayaa gacanta ku haysa waxa weeye 6 goobood baa naga xidhan annaga dadkii dhulka lahaa aan nahay waxaan noo haysanaa tii ilaahay baan noo haysanaa oo noo ognahay tii gaalkaan noo haysanaa wax alliya waxay ku xidhan yihiin la nooma sheego waana Hargeysa korkeeda magaalo madaxdii korkeeda marka doorashada aad qabanaysaan niman baad u wadaan intaan ognahay annagu aqli baan leenahay googaradii xidhay oo raginimadiinii inii diiday marka waxaanu fahmi leenahay waxbaad kala garan laadiin oo aqoon baynani waxaanu lahayn aad qabateen ma baqdin baa in hayso waad ka baqasaan ragga taasina haddii doorashada la qabto waan ogaan doonaa haddaba laba nin baan rabaa inaan fariintayda maanta si fiican u faro waa labada nin ee madaxda u ah wadankeena eego ee gobolka laga soo doorto oo u waaweyn intaan ogahay markaan xil eego mid waa Saylici ninka la yiraahdo Saylici waxaad noo sheegtoon TV-ga ka daawanay inaanu xilkaagu macna lahayn oo tasuurka loo eego haddaad taa og tahay markaad maanta dhammaysataad noo sheegaysaa waxayna tusaysaa inaad shilimaan ku qaadanaysay meesha oo dhulka iyaga aanad noo ilaalinayn madaxda dadka kaleba iyagoo dhulkooda u hadashaan aragnaayo oo leh TV-yada laga maqlaayo ninka Axmed Yaasiin la yiraahdana waa ninka fariinta faraya waa ninka ruuxa weeye intaasoo dhan baad qaylinaysaa waxaad la qaylinaysaa maxilkaasoo ha
إلا أنت دومات قيليني وأنا رونو وأنا رجنا حلكة بدو قيليسي هدي إسكا عسيري ويدو سيدان كوسي سعوتو يادوك ماشي تكتي من دي لفعيسي يا أورما كتاليسا marka inta dhulkan u talinayso lafaciisa ka tali waan naqaanaa raggan sida la iskaga celiyo loo eriyade marka booramaha noo dhex imano dhalinyarta ha ka dhex imano ha oranin doorasho la qabanaya wad ugu afdheerto waan arkaa haddii aadan yoon isku qabsan waayana deewanu ka wada hadli doonaa dhulkayga anaga forsal maahe forsal dhulkaygu ma aha ila lixda goobood la furana doorasho la qaban maayo wanu ka diyaar garoobana macluumaadkeedii hal la nasiyo waxeedii hal la keeno markaas doorasho la qaban doona markaanu dadkayga u aqliyayno doorashana yaa la inii qaban doorashada la qabanaya waa doorasho qabiil waan salaamaya ummaday